annagoo ah ururka gargaarka gabdhaha Soomaaliyeed waxaan jecelnahay inaan idinla wadaagno muhiimadda iyo qiimaha ay leedahay gabadha wax baratay. gabadha wax baratay waxay horumarisaa qoyskeeda, caruurteeda iyo bulshadeeda dhinac walba. gabadha wax baratay waxay tusaale wanaagsan u tahay gabadha aan wax barin, waxayna sare u qaadaa aqoonta gabadha kale. gabadha wax baratay waxay awood u leedahay in ay keensato hal abuur u gaar ahi ayadoo adeegsanaysa aqoonteeda iyo xirfadaheeda gaarka ahi. gabadha wax baratay waxaa u fududaanaysa inay ogaato xiriirka ka dhaxeeya iyada iyo rabbigeeda. gabadha wax baratay waxay garanaysaa mas'uuliyadda ay ka saaran tahay, mas'uuliyadda nafteeda iyo tan bulshadeeda. gabadha wax baratay ee la xirfada wax gudbinta waxay hoggaan wanaagsan iyo dhiirigelin u tahay gabadha aqoonta leh laakiin aan bulshada u soo gudbinin aqoonteeda. gabadha wax baratay waxay horumarisaa nafsadeeda, waxayna ku hagtaa jidka toosan oo Alle raali ka yahay. kor u qaadida aqoonta gabdhaha waa horumarka bulshada. gabadha wax baratay markii ay horumariso nafteeda oo ay wax barto waxay fursad u helaysaa in ay baritoole caruurteedii horumariso. gun iyo gunaanadka hadalkeena haddaba haddii aan soo ogaanay gabadha wax baratay horumarka ay bulshada u leedahay, maxaa inoo diidaya in aan u kacno sidii aan u horumarin lahayn gabdhaha kale ee asaageena ah, si aan u gaarno barwaaqo, horumar iyo balaare. haddaan gabadhi kula jirin nolosha guul male. gabadh wax baratay waa bulsho wax baratay.